جولاي كوديدي كونية سقال بقول إيو كوبي تضباطنكي مدحوينها قولها سريع ثورة شال سياد إساقا أو كهدلايا dalalka Soomaaliyeed ee wali ku jira gacanta dalalka aynu jaarkanahay waxa uu si weyn u tilmaamay inay tahay lagama maarmaan in heshiis iyo afgarasho laga gaadho dalalka Soomaalida ah oo dadka walaalaheena dariskeenu ay haystaan waxaan iyada kale yahay oo annagu aanu ka qabnaa in dawladaha madaxdoodu iyo dawladuhu intuba in ay isu yimaadaan oo ay dhibaatooyinkaas dhex yaala oo isticmaalku ay dhaliyeen oo ay ula jeedeen inay naqaybiyaan annaga walaalahan iyo annaga intay naqaybiyaan waxna dhex dhigaan dhibaato noo sameeyaan kadibna ay nagu mushtaraan annaga dhexdanada inaanu garanno oo dad xilkasta annagoo ah aanu ka tashanno oo danaha annaga aanu u kala fahamno si run ah oo dhibaato la'aan adduunka qoomkii kasta oo joogaaba madax bay leeyihiin haddii madaxdaasu ay wax daran ugu gudoomisana markii madaxdaasu ay tagto ay dhimato magac xumay ka tagaan habaar baa laga daba diraa cay baa laga daba diraa kuwii inkaarta qabay oo joogay maxay waxaa xun ugu gudoomiyeen ayaa qoomkaas yiraahdaa ama shaqligaas yiraahdaa haddii ay wanaagooda ka taliyeen oo ay ka shaqeeyeenna magacsan bay ka tagaan dadku waa ku mahadiyaan wanaag bayna ku xusuustaan waxaan anigu taa ka leeyahay ilaahay baa xugmay annaga iyo Ethiopia iyo Kenya inaynu ku noolaano geestatan Afrika inaguna hadda waa ku noolahay shak kuma jiro qoonka naga dambeeyana meesha ku noolaan doonaan marka wax tirtiri kara ma jiraan haddaba maxaa nala gudboon madaxda saddexda dawladood ma inaanu wax daran u gudoomin dadkanagii oo isku leeyna mise waa inaanu garanno oo wixii dhex yaala ay si fiican ugu tashadaan ay markaas si xaq ah oo saaxiib ah oo walaalnimo ah oo daris ah oo muxuu ah cadaalad ah wixii isaga qasan inay ku qaybsadaan miya hadda waxaan is leeyahay wanaag wuxuu ku jira inay ku qaybsadaan sidaas xaq ah haddii aan French Somaliland ku imaado waxaan ka leeyahay annagu waxba kama qabno waana aan salaamaynaa saaxiibnimada iyo isu dhawaadka iyo safkaradka dadka degan dalkaas loo yaqaan Soomaaliya Franchise waxaan sunnaynahay isu dhawaadkaas iyo saaxiibnimada safkaradkaas waa inuu u socdaa oo ay dawladda Frenchigu ay yeeshaa dadka iyaga ah inay ogolaato khiyaarkooda inay ogolaato xornimadooda inuu siiyo saabaanu ku leenahay dawladda Frenchiga annagu haddii waliba loo eego taariikhda dawladda Franchiska ah oo ka dhalatay dawlad revolutionary waligeed ba ahayd oo xoreysay Afrika oo idil oo ay kaga hartay Soomaaliya Franchise inay xoreyso ayaanu weydiisanaynaa una ogolaato sida iyagu ay ka jecel yihiin waxaan is leeyahay taladaasu waa tala ugu fiican ama waa siyaasadda ugu fiican baan is leeyahay